toddobaadkan dunida waxay u dabaaldegaysaa toddobaadka dadka dhagaha naafada ka ah Soomaaliya marka laga hadlayana dadkan ma helaan adeeg waxbarasho ay xaq u leeyihiin magaalada Muqdisho waxa ku yaala hal dugsi oo kaliya oo ay dhagoolayaashu wax ku bartaan wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa iskuulkaasi booqday oo warbixintan inooga soo diray waa aroor hore ardayduna waxa ay isku diyaarinayaan maalin dheer oo waxbarasho inta aysan fasalada galin ayay halkan ku qaataan casharka ugu horeeya inka badan 250 arday ayaa dugsigan dhigta balse waa tiro aad u yar marka la eego caruurta aan fursadan helin ee dhagaha naafada ka ah 10 sanadood ayaa ka soo wareegatay markii la aasaasay dugsigan balse weli waa iskuulka kaliya ee u gaarka ah dadka dhagaha naafada ka ah ee magaalada Muqdisho runtii tirada ardayda dhigooda way badan tahay iskuulkana ma kaafin karo taasi waa run hadda 100 arday oo meel ay fariistaan aan u weynay ayaan fasaxnay kuwaas oo ayagoo 20 ah daafaha magaalada Muqdisho aan macalin ugu dirnay macallimiinta halkan casharada ka bixiya waa ardaydii halkan ka qalin jabiyay maadaama aan la heli karin macallimiin luqadda tilmaanta wax ku dhigi kara ardaydan aad u jeedaan waa ardayda maqalka la waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo inay horumar ku gaaraan aqoontooda maxaa yeelay ardaydan waa mustaqbalkeena waa mustaqbalka dalkeena wayna naanfici doonaan waxaa loo baahan yahay inaan garab istaagno oo aan ku dadaalno ka sokow maadooyinka caadiga ah ee ku jira manhajka waxbarashada Soomaaliya waxaa halkan ardayda lagu baraa luqadda tilmaanta oo iyaga dhexdooda ay isku fahmaan una suurtagelinaysa in ay si heer caalami ah u helaan isfahan bulsho halkan cidina kuma maqlayso cidina kulama hadlayso noloshuna waxay u socotaa si caadi ah waxbay baranayaan way sheekaysanayaan way kaftamayaan balse caqabadu waxay ka jirtaa marka ay banaanka u baxaan oo ay rabaan in ay bulshada dhex galaan warbaahinta oo ah halka ay dadku xogta ka helaan ayaa la aaminsan yahay in aysan muhiimad siinin dadka dhagaha naafada ka ah taas oo wax badan ka tari lahayd haddii fursad laga siin lahaa warbaahintu waxa waaye waxaa la dhahaa waxna waa ku bartaa xogna waa ku siistaa madadaalana way tahay intaasay ka shaqaysaa soo ma qofkii dhagaha lahaa haddii intaas qof kale oo maaragtay u fasirayo uu fahmo marka waxay u soo kordhinaysaa wax badan oo ka baranaa marka meedii waxbuu baranaa xog uu helaa madadaalo uu helaa intaasba marka sida qofka kale oo dhagaha leh oo kale noqonaa dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ayaa burburiyay gabi ahaanba nidaamkii waxbarashada dawladda waxbarashada gaarka ah ee hadda jirtana muhiimad ma aanay siinin waxbarista naafada dhagaha oo tiro badan ka ah bulshada Soomaaliyeed Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho